بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توناك سنة لهانتين بداوض يال صاحب يال halkani waa barta aan youtube-ka ku leenahay ee dalka tv media tube kusoo dhawaada wararkeena kahor wararkeena waxaan idinka codsanaynaa fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay ee aad markaasi warkeenan aad dhegaysato ama channelkan aad nagu soo booqato fadlan subscribe dheh sidoo kale gambaleelka furo si aad u hesho war kasta oo soo dhacaya oo xasaasi ah oo halkan kasoo baxaya sidoo kale haddii aad ku xiran tahay barteena qaranka tv media waxaanu ka codsanaynaa inaad halkan kusoo biirto iyadoo wararka qaarkood aynu halkan kasoo dii doono haddii allah wadal raalli ka ahaado laba qodob ayaynu ka hadlaynaa daawadayaal qodobka weyn ee xiisaha leh ayaa waxa uu yahay ugu horeeya in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay tabeen ummadda soomaaliyeed iyadoo boqol beri aan la gaarin ayaa xukuumaddii ay ku fashilmeen madaxweyne xasan iyo inay soo dhisaan golo wasiiro isaga iyo ra-iisul wasaarihiisii islamarkaana ay gorodda iska lushaan daawadayaal sidoo kale arrinta la yaab kale waxay tahay mushaaraadkii iyadoo aysan boqolkii beri aysan u buuxsamin kooxda damujadiid in durba uu biloomay mushaaraadka inuu dib dhaco iyo sidoo kale taatika iyo khiyaano kale oo la sameeyey taasi oo ah iyadoo dhowaan hay-adda nabad sugidda agaasimaheeda mahad salaa aanu idiin sheegnay boqolkiiba 60 inuu mushaarkii ciidamada nisa goostay gaar ahaan dhammaan xubnihii iyo weliba saraakiishii iyo ciidamadii ugu badnaa ee la soo shaqeeyey nabadii nolol ayaa markii dambena waxaa loo sheegay in la kala diray ciidankaas iyadoo ciidan aad u yar uu soo reebay ciidankaas ayuuna daawadayaal markaasi hadda kadib mushaarka u diri doonaa ciidan fara kooban iyo kuwa uu hadda qaatay dhammaan ciidamadii kale ayuu daawadayaal waxa uu sameeyey inuu kala diray hase yeeshee waxyaabaha xasaasiga waxay tahay jadwal dhowaan soo baxay oo ku saabsan hay-adda nabad sugidda mushaarka ay qaadanayso in aysan jadwalkaasi waxba ka jirin oo mushaarka ay awalba horey u qaadanayeen sidoo kale arrinta kale oo fadeexadda oo soo baxday waxay tahay in hay-addii dhammayd ee sirdoonka qaranka ee xogteedu ay hooseysay in la ogaado lacagta iyo dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan xitaa inay tahay dembi qaran oo laga galay qaranka soomaaliyeed waa tahay daawadayaal aynu ku horeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la tabay marka la eego guud ahaan siyaasadda hadda aan weli markaasi 3 bilood gaarin ee ay ku dhaqmayaan kooxda damul-jadiid 15 May ayay ahayd markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo looga adkaaday doorashadii iyadoo doorashadaasi ahayd mid ku shubasho iyo musuqmaasuq aad u baahsan u hareeyay wadamo shisheeye oo Israa'iil iyo Imaaraad ay kamid tahay iyo wadamo kale oo madaxweyne farmaajo aan dantooda ka arkin oo Kenya ay kamid tahay iyo Sacuudiga iyo ayaa ka qayb qaadanayay sidii madaxweyne farmaajo meesha looga saari lahaa reer galbeedka ayaa iyaguna ka marnayn maadaama uu qaatay tallaabooyin iyo go'aano xasaasi ah oo wax kaga qabanayo kooxihii qowleysatada ah ee ku jirtay gudaha xerada Xalane si kastoo ay ahaataba wixii intaa ka dambeeyay waxaa soo baxday in madaxweyne farmaajo bedelay safar iyo socdaal aan joogsi lahayn inuu ugu baxay dalka dibadiisa muddo 7 jeer ku siman halkaasi oo ay ku baxeen kharashaad aad u fara badan sidoo kale waxyaabaha naxdinta leh waxay tahay daawadayaal in mushaaraadka ciidanka oo aan 5 sano la soo dhaafay hal bilna muran gelin amaba aan laga baqin in haatan uu yahay markaasi mid khalkhal uu soo wajahay shaqaale ka tirsan shaqaalaha dawladda ee khaaska iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo aan codkooda soo bandhigi karin sababo amni darteed iyo in markaasi la ruqseeyo amaba la bartilmaamaysto ayaa waxay noo xaqiijiyeen in bishan mushaarkii uu kasoo dibdhacay oo dhowr casho gudahood markaasi awal ay qaadan jireen 25 bisha ugu dambeynna mararka qaarkood ay 26 ilaa 25 ka heli jireen laakiin waxay sheegeen dhawaan inayba ka walwaleenba inuu gabi ahaanba uusan mushaar soo dhacayn maadaama damajadiid ay ku lahaayeen ciidamada militariga iyo ciidanka xoogga dalka iyo weliba xildhibaanada iyo shaqaalaha rayidka 9 bilood oo mushaar ah cabsi intii leeg ayay dareemayaan iyadoo daawadayaal dawladdu aysan xataa muddo 3 bilood ah aysan markaasi u buuxsamin waxyaabaha naxdinta leh waxay tahay daawadayaal inay ciidamadu ay sheegeen mushaarkoodii inaan xataa qaarkood ilaa ilaankan aysan helin oo qaarkood ay ka maqan tahay shaqaalaha dawladda iyo xildhibaanada ayaa la sheegay weli inaysan mushaaraadkoodii qaar helin iyadoo la sheegay bilowga Agost inay heli doonaan waxyaabahan waxay ku soo aadayaan iyadoo miisaaniyadda dawladda Soomaaliya laga dhigay ku dhawaad 1 bilyan oo dollar oo ay aad u kacday ayna ahayd mushaarka ciidanka dawladda in la laabo daawadayaal waxyaabaha laga baqayo ayaa waxay tahay in mushaarka ciidamada dawladda iyo kuwa xildhibaanada iyo kuwa shaqaalaha rayidka intaba ay jeebka ku shubtaan kooxdan damujadiid oo weligeedba caan ku ahayd in mushaaraadka markaasi hay'adaha kala gedisan dawladda jeeb ku shubato waxyaabaha daawadayaal naxdintaasi markaasi amaba baqdintaasi si laba jibaari ayaa waxa kamid ah dhawaan mahad maxamed salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda nisa oo hore u eedeeyay agaasimihii hore Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kuna eedeeyay inuu al-shabaab la shaqeeyo gacan saarna la leeyahay ayaa dhawaan waxa uu dhibay mushaaraadka ciidamada nisa isagoo 60% daaqada ka saaray 40% kaliyana sheegay in hadda kadib loo soo diri doono taasi waxay ahayd fariin ku aadan inay guryahooda iska aadaan iyadoo ay la kulmi karaan khatar amaan qaarkood baastooladaha ayaa laga qaatay halka qaar kalena xabsiyada laga buuxiyay iyadoo kaliya waxay eersadeen ay tahay inay nabadii nolol soo shaqeeyaan waa dawladda ummadda Soomaaliyeed ee jeclada
waxyar kadib markii ay qeyla afkii labadii yareen shacabka Soomaaliyeed isla markaana mushaaraadka 60% iyo xogihii iyo arrimihii oo dhan banaanka la soo dhigay ayuu kaartadii bedelay Mahad Maxamed Salaad waxa uu sameeyay in ciidamada nisa boqolkiiba 60 kuwii uu ka jartay daawadayaal oo qaarkood hore u sii ceyriyay oo ciidamo ka howlgalaya gobolada dalka iyo caasimadaba loo sheegay inay hadda kadib ay fasax yihiin kuwaasi oo khalkhal iyo cabsi weyn ay soo wajahday maadaama hubkiina laga arursaday gudaha magaalada Muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobolada dalka iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka Iraahdee ay joogaan iyagoo waliba daawadayaal markaasi amaankooda aysan haatan boqolkiiba boqol uusan markaasi la isku halay karin oo ay xaaladooda ku jiraan konton oo ay u nuglaadeen cadowgii argixisada al-shabaab maadaama qalabkii laga wareegay haddaba daawadayaal qayladhaanta shacabka Soomaaliyeed ka soo baxaysay iyo waliba dadka jecel in mushaarka ciidanka aan la taaban hay'adda nisan aan la burburin oo ay markaasi shaqadeeda ay sii wadato ayaa durbadiiba dhaliil iyo cambaarin aad u culus u jeediyay kooxda Damujadiid laakiin kaartadii ayay bedeleen ciidan aad u tiro kooban ayay qaateen ciidamada nisa tiradooda walow la qariyo haddana waa kumayaal ayaa laga dhigay daawadayaal aad ayaana ciidamada 5000 4000 ayaa loo qaadanayay muddaxileedkii madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasin agaasimaha ka ahaa haddaba ciidankii faraha badnaa ayay waxay u bixiyeen magac kale kooxda mucaaradka si ay u banaystaan ceyrintooda CBB ayayna ka dhigeen ay ula jeedaan cayaanka buraha bulshada ama taageerayaasha nabad iyo nolol magac ay u yaqaanaan ciidamadaas ayaa gabi ahaantoodba sida uu noo sheegay sargaal ka tirsan ciidankaas iyo sargaal kale oo military ka tirsan gabi ahaantoodba intii badneed boqolkiiba waxa la leeyahay 60 shaqadii waa laga eriyay waxa aad u yar ayaa soo hartay ciidamo fara ku tirisa haddaba ciidamada markay soo hareen maadaama ciidamadii badnaa la eriyay ayaa mushaaraadkoodii waxa la sameeyay in la dhaho ciidamada kale ayaa lagu kordhinaya lacagaha mushaaraadka iyo jadwalka daawadayaal ee la sameeyay ee sawirka meelaha marmarayay ee la leeyahay gaashaanla 400 ayuu qaadanayaa qaadan jiray jaamici wuxuu qaadan jiray 300 dugsi sare 200 ayuu qaadan jiray mudane iyo dablana 150 ayay qaadan jireen oo mudane iyo dablana 200 ayaa looga dhigay sidoo kale dugsi sare 200 ayaa looga dhigay jaamicina 350 gaashaanlana markaasi 500 waxaasi oo dhan ayaa waxba kama jiraan ah iyadoo daawadayaal xogtu ay tahay in ciidamadii hore la dhibay mushaaraadkiina jeebka ay kooxdu ku shubatay haddaba burbur aad u xoogan iyo kooxda waliba nisa oo hadda fahmi weysay in ay xataa kooxihii argixisada ahaa ee gobolka Bakool duulaan kasii qaadayay awood ay ku ogaato yeelo weysay ayaa cabsi aad u weyn laga muujinayaa inay guud ahaanba ay burburto oo magacun ay u taagnaato si kastoo ahaataba kooxda wadanka taladiisa qabsatay Damujadiid ayaa iyaga looga bartay muddaxileedkooda heer 2012 iyadoo mushaaraadkii shaqaalaha rayidka ahaa iyo kii militariga iyo kii markaas nisa iyo kii xildhibaanada lagu leeyahay ayay wadanka daawadayaal taladiisa ay wareejiyeen mushaaraadkaas ayay qaarkood waxay ku galeen doorashada halka kuwa kalena ay ka dhisteen guryo aad u waaweyn oo ay markaasi si shakhsi ah iyagu u dhisteen tii ayaa laga cabsi qabaa haatanna mushaarada soo dibdhacay durba biloomay ayaa shaki aad u weyn laga muujinaya waxaana laga baqayaa gabi ahaanba inay daaqada ka saaraan mushaarka isla markaana ciidamadu ay noqdaan kuwa si volunteer furimaha ku jooga taasoo dhibaato u keenaysa askarta maadaama askarta qaarkood daawadayaal ay deganeen guryo ay leeyihiin oo ay ku jiraan guryo kiraa sidoo kalena xaasas awlaad waarid iyo waliba dad badan ay ka dambeeyaan kuwaasi oo askarigii furinta ku maqan oo aan xor ahayn isla markaana dalka u shaqeynaya oo aan inuu fasax qaato yar ma ahan aan meel kale aadi karin shaqo kale aan qaban karin sidoo kalena cadowga argixisadaha meel walba ay u joogaan haddii mushaarkiisa laga goosto waxay noqonaysaa arrin naxdin leh oo qaraac leh waxay noqonaysaa askarigu inuu moraal jabo oo cadowga argixisada iyo cid kasta oo la dagaalamayo oo dowladnimada Soomaaliya lidi ku ah inuu markaasi uu u maro wadiiqo isagoo khalkhalsan ama maankiisu uu maqan yahay taas oo saali karta askariga in laga helo fursado lagu dilo isla markaana noloshiisa qaaliga uu sidaasi ku waayo si kastoo ahaataba daawadayaal cabsida la wajahayo amaba baqdinta la dareemayo ayaa waxay tahay marba haddii 3 bilood iyagoo jooga sidaan sameynayaan maxaa dhici kara ayaa leeyahay xukuumadani haday 3 bilood ay kor u dhaafto 4 bilood iyo 3 bilood xataa maysi gaarin 4 bilood iyo 5 bilood haddii ay gaarto maxaa dhici kara arrimaha kale ee markaasi ayaamahan la wadwaday waji gabax ayaa waxay tahay in 2 bilood iyadoo markaasi ay dhaaftay muddaxileedkii madaxweyne xasan sheekh intii ka dambeysay dabcan agost ayaan hadda galnay 15 May marka la doortay May 15 ayaa uga harsanaa June ayaa dhalato dhamaatay July ayaa dhalato dhamaatay Agost ayaa hadda la galay daawadayaal si kastoo ahaataba oo berito la bilaabanaysa haddana waxaa xusid mudan ilaa iyo hadda inaan xukuumad la soo dhisin iyadoo ra'iisul wasaaraha markii hore si uu la dahay madaxweynaha la ogaa in haddana aan xukuumad la soo dhisin waxaana xusid mudan 3 bilood markii ay jirtay dowladii hore ee nabad iyo nolol waxaa joogay ra'iisul wasaaraheedii Xasan Cali Khayre waxaa joogay golihi wasiirada taliyayaashii ayaa dhisnaa wax walba ayaa dhisnaa haatan waxaa la leeyahay kooxda Damujadiid waxa la waxay sameysay ay garalaayeen dhinacyada wax ka doonaya siyaasiyiinta iyo sidoo kale xilalkii oo aad u kooban ayay ku dawaqsan yihiin ayaa la leeyahay cabsi aad u weyn way soo food saartay haddaba dadka Soomaaliyeed ayaa durba tabay madaxweyne Maxamed
cabdullaahi farmaajo xabiibul malaayiinka ummadda soomaaliyeed ee jecleed isagoo waqti aad u kooban ka maqan jagada ugu sarreysay ee hogaanka dalka iyadoo laakiin dadka soomaaliyeed ay qabaan raja ah inuu maalin uu soo laaban doono haddii allah awoodale raali ka ahaado madaxweyne xasan sheikh ayaa hogaamintiisu aysan waxba iska bedelin tii 2012 ilaa 2017 iyadoo dadku durbaba ay ka rajo dhigeen inuu wax wanaagsan soo siyaadiyo waxaana dadka cabsanaya ay sheegayaan siyaasiyiinta shantii sano ee madaxweyne farmaajo wixii la dhidhisayay ee boolbool loo xirxirayay inuu dib u furfuri doonaan kooxdan damujadiid boolbool oo ay dib ugu celi doonaan bartii iyo walwalkii cabsidii waagii hore ee xukunka talada ay wareejinayeen la joogay ay dalka dib ugu celi doonaan iyadoo siyaasadda arrimaha dibadda durba ay u qaadeen tallaabooyin guuldarro ah oo aad u waaweyn safaro joogta ah sidoo kale mushaaraadka oo qiilqiil ku jira iyo arrimo kale sidaad u aragto muwaadin dhanka hoose nagula wadaag aragtidaada sina sheergare muuqaalka